muslimka shakhsiyadda oo islaamka ka doonayo islaamku yuu u baahan yahay shakhsiyadda u baahan yahay inuu noqdo qofka muslimka ah maxaa laga doonayaa inuu soo u yiraahdo qof muslim ayaan ahay dulmiga bayna zawjaadka dhacay oo ah dulmi khatar ah khaasatan ragga waxaad arkaysaa in dulmi aad u fara badan ay ku dhacaan ayagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kaga cabsanin xaasaskooda haddii aad hooyada iyo aabbaha aad caasi aad u ahayd ilmahaaga caasi ay noqonayaan walidaalika culimmadu waxay yidhaahaan waxyaabaha adduunyada kusoo degdega ciqaabta oo adduunyada kusoo degdegta waxaa ugu horeeya ka mid ah waalidiinta caasinimadeeda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم waxaan ku jirnay xalaqaad aan ka hadlaynay oo musalsal noo ahayd oo ka hadlaynay alkasb alxalaal kasbiga xalaasha ah ayaan ka hadlaynay kasbiga xalaasha ah xalaqooyin badan aan ka soo sameynay waxaan ugu dambeysay xalaqadii aan kaga hadlaynay waxay ahayd maxaa qofka dhibaatada uu qofka adduunya iyo aakhira kala kulmi karo dhowr qayb aan soo sheegnay waxaa ka mid ah cadaabo qabri qofka xalaasha aan cunaynin waxyaabaha ilaahi subxana wa tacaala shareecadiisa noogu sheega waxaa ka mid ah ama nebiga calayhi salaatu wasalaamba inuu qofka muslimka ah su-aalo la weydiin doono qiyaamaha qabriga aan leeyahay su-aalo cadaab qabri inuu jiro cadaab qabriga waxyaabaha keen waxaa ka mid ah inuu qofka muslimka ah uu xaaraanta iska ilaalinin macnaha xaaraanta maalka xalaasha ahayn mar kasta u cuno saas daraaddeed waxaan mar kasta qofka muslimka ah cibaadada uu sameynayo ayay saameyn ku leedahay waan sheegnay qofka haddii cadaabka ay geynaysaa waxay nabiga alayhi salatu xadiiska wuxuu kullu jismi nabata fi lxaraami fannaara ulaa bihi jir kasta oo lagu koriyey xaaraan naartu ku degdegaa marka waxay leedahay suu lqaatima qofka waxaa laga yaabaa salaad inuu tukado xaaraantu iska cunaa ilaahay subxana wa tacaala yumhil walaa yumhil ilahay subxana wa tacaala xerigu kuu dheereynaya xerigaas lagu dheereeyay markaad waxaa u malaysaa inaad sax tahay maalka kuu batay ama xooladodow aad dhacday ama aad maal aad xaaraan ku cuntay waxay keenaysaa marka inuu jismigaaga markaas xusuu qaatima kugu dhacdo qaatimo xumo walciyaadu billah kadibna marka dambe ay ku keento inaad aad cadaabka ilaahay gashaa waxyaabahay leedahay waxaan yidhi cadaab qabri ah nabiga alayhi salatu salam xadiiskiisii oo ahaa ra'aytu leyla rajulayni ataani faakhrajani ila ardi muqadasa nabiga alayhi salatu salam wuxuu leeyahay habeen ayaa riyada ambiyadan waa xaqiiqo wey niman baa yimid inuu laba nin ayaa i kaxaysay waxay i geeyeen xataa ida atayaani calaa nahri dam min damin fiihi rajulun qaa'im nina taagan webi oo dhiig ah i geyn yidhi webiga dhiigga ah marka wuxuu yidhi waxaa nina taagan geesaha koonaha ka taagan ama webiga dhexdiisaba markaasuu dhagax weynna afku ku hayaa ninka qofka markuu dadna webigaasay ku dhex jiraan markuu raba inuu ninka ka soo baxo afka ayuu dhagax u geliyaa yidhi nabiga alayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu ka hadlay nabiga alayhi salatu wasalaam kuwaas yay yihiin markuu yihin wuxuu yidhi waa dadka xaaraanta cuno ribada cuno naska ribo sii sheega marka ribada waan sheegnay xaaraanta meesha ugu koreysay ku jirta ayada laakiin asaas waxaa ah mar kasta qofka muslimka laga doonaya inuu ilaaliyo oo inuu iska ogaado xaaraanta dhan iska ilaaliyo xaaraanta marka maxay tahay maalka xaaraanta muxuu yahay waa maalka ugu soo galay dariiq oo qalad ah maalka cayntiisa xaaraan ma naqda laakiin dariiqatul kasbi qofka suu kusoo galo ayaa markasta lagu xisaabtamaya maalka suu kugu soo galo ma soo dhacday xaaraan wey ma khiyaanaysay xaaraan wey been ma ku keentay xaaraan wey waxaasoo dhan waxaa weye suu kugu soo galo ayuu maalka xaaraan iyo xalaal ku noqdaa walidalika ilaahi subxaana wa tacaala mar kasta qofka wuxuu xisaabanayaa laha ma kasabad wa calayhi ma ktasabad iktisaabka waxaa kasbatay iyo habkay kugu soo galeena laga hadlaya su-aalihii la isweydiinayay siraadkan waxaa kamid ahayd min ayna iktasab halkey ka keentay halkey ka keentay lacagtan maalkan oo aad ku faanaysa leedahay taajiraan ku ahay halkey ka keentay ayaa leeyahay qofka muslimka sidoo kale wuxuu leeyahay cadaabka aakhir waan sheegnay nabiga alayhi salatu salam kadib wuxuu yidhi ina hada almaal qudratun xulwa wa hadi dunya riwaayadna waa ahayd wuxuu leeyahay maalkan waa cagaaran yahay qofka waa farax gelinaya markuu taajir noqdo lacag yeesho waa ku farxayaa wuxuu yidhi man asaabahu bixaqihi marka
ورنيك مال كو يشور حق كو يشي وحو ديدت كيسا او شقيستay cid kama dhicin dawlad kama dhicin baan iyo qoto kuma qaadanin waxyaabaha soo dhan waxay kamid tahay asbaabaha maalka kugu soo galo marka qof kasto asgaran kara asaga wuxuu leeyahay nabiga calaysalaam man aqaman ashaabo min xaqi bi xaqi ninki ku qaatay buurika lahu fi ilaah wa barakeeya walidaalka waxaa arkaysaa dad lacag yar qaata mushaarkooda ama ila waxay dawladda ay ku caawinto ama wasaaradda ku shaqeeya lacag yar u haystaa lacag looguma daro tii ilaahay subxaanahu u barakeeyey waxaa laga yaabaa intaas caruur uu leeyahay bal waxaa laga yaabaa wuxuu ka sadaqeeyaa maxaa dhacay buurika fiihi nabiga calayhi wuxuu waa loo barakeeyey maalka xalaasha baraka la socoto ama maalka xaraamta waxaa laga yaabaa villa uu ku jiro qofka haddana waqti ku raaxaysan male villada uu dhistay ma ku raaxaysan karaba wuxuu ku leeyahay villa halkaas ku leeyahay dubay mida ku leeyahay inta ku leeyahay inta ku leeyahay uu leeyahay laakiin marna ma kaga raaxaysan karo adduunya la daba dhigay maanta dhan waa socyaa diyaar uu sii saaran yahay ma haa raaxadi maalka maxaa ugu maalmaha joogaysa adduunyada cala aqal ma ka raaxaysata balse dadka maalka yeesha boqol ay ka qaadaan zaka ma bixinayo arkaysaa maalkiisa zaka kama bixinayo xaq ilaahi ku waajibay xaqun macluum lisaa'il wal mahruum xaqan ilaahi ku waajibay zakada bari lama wax laga baraya ma ah haddii kale waxay noqonaysaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay waladiina yaglusuuna dahab walfida kuwa zakada aan bixinaynin oo ilaahay nicmo siiyo ilahay wuxuu leeyahay cadaab ugu bishaaray نعم والغو دوبا شيء بقيشة الغو دوبا تطلع له ما لها جرى قولوا زكاة أنا قان حق نقول له ما يقان ولذلك مالكيز نكاس والغو عذابي أما حاران وكوكينو ما أنت نتيه وكجرا وحكى له هذينا هاي حاران وكوكيني ودولته مسؤول وياه مسؤول وياه لعقتي يصدق مرة وحول لي نك قدمه وجماد وحول لي لعقت صار لعقتين وحيسي أنا وحيسار كوميشن كان ما قاعد بدنا بحنا رشوذي هذه lacagta xaraam markaas oo wuxuu leeyahay ilmihii ku soo dibadda joogo ku soo marsuuf ilmihii marka qaar xabsigay galeen qaar waa jiradeen qaar dadii dileen qaar waa la dilay waxyaas maxaa keena xaaraanta ikhwaani wama asaabatkum min musiibati fima kasabat aydiikum musiiba haddii ku dhacdo qofka waxaa rabaa isku laabtaa dunya oo yidhaha halkee laga soo gaaray laakiin maanta dhan haddaa yidhaha ilmihayga lacag meel u dhigaya aan u dhigaya lacagtaas xaaraanta ah ama aan siinayo beri ilmaha waxa waaye cadaab ay geyn kartaa adig caasni cunug kugu naqanaya ولذلك dadka meesha laga asiiba ma yaqaanaan xaaraanta ugu arag salafka saalixa waxay ah jireen waxa aad iskaaga ilaalin jireen waxyaaba xalaal ka tagayeen oo shaki ka gala maxay diinteeda qatar ku jirtaa maxay adduunyo aakhira adiga waa kala badanta aakhira u socota adiga adduunyo lagu amaaray nin heblow taajir waan lagu yiraahdo oo dadka ay ogeyn lacagta meelaha ka keentay meeqa waalidiina lacag laha jireen maanta tii aadeen dadka milyaneerka ahaa oo wadanka joogay way socdeen adigana waa soconaysaa laakiin maalkooda cadaab ku yahay maalinkaas waa la weydiinayaa cadaabka lagama qaadayo ilaa ay sheegaan xalaal may ku keeneen ma dawladda ku soo dhacay walidaalika waxaan yidhi xalqada horaan kaga hadlay dawladda sababta isku gudinay waxa waaye inaan wax korosano mansab inaa yeelatid oo dadka ku xukuntid oo dadka ku dhacdid oo xoolo xaaraan iska daldalatid oo cid ay ku weydiisay ay jirin waa macnaheed qatarteeda leedahay walidaalika nabigu calayhi innaha xasratu wanadaama uu yidhi dadka madaxtinimada aadayo وشلاينا يوري قيامها وانا حصري نظامي يكون جيران اذا مالك وحول النبي عليه الصلاه والسلام مالك ومعيه وانا دلالا مالك لكن وحو كليه وحا اسك الاليسا حقيسو ku qaado warshayga xaaraanta iska dhoor waxaan xaaraan way gurigeyga liiga keenin dadkan Yurub joogo oo separateki iyo qurunki wax cunayo war xaaraanta ka iska ilaaliyo xaaraanta biri adna wax ma ku tarto macnaa rizqa ilaahi waa qoray wama midabatu fil ard ala allah rizquha rizqa ilaahi qoray marka ajmilu talab habka ku raadinaysa raadi marka dadka xool oo inuu soo dhaco raba mansab uu ku raadinaya laaluushu bixinaya inuu wax kale oo helo waa mushkilo waa marka wuxuu yiri warubba mutakhawidin fima sha'at bihi nafsuhu min Allah wa rasulihi lahu yawm al-qiyamah ila an-nar waxa laga yaabaa qof inuu naf maanta maal iska tacbado laakiin maalkaas naar inuu geeyo oo cadaabka ilaahay geeyo walidaalika waxyaabaha maalka meelaha xaaraanta laga qaato waxa kamid ah maxkamadaha dadka qaadiga qatar way shahaada zuurka ama dada wuxuu ku leeyahay guri oo lahayn asal warqad u soo sameysana warqad u soo sameystaba wuxuu leeyahay gurigan aniga ayaa warqadiisa iskale ana haasto warqad u soo sameysta guriga walidaalka nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka hadlay xadiiska musalama wuxuu leeyahay inama ana basharun warani basharan ahay bani aadana ahay aniga ogaada wixii qalbigiina ku jiro ima ogaan kari waxaan xukminahay waxa ii sheegtaan macnaha wa innakum takhtasamuna ilayya idinka laakiin dooda ay gumaanaysa idinku is haasto hebel anaa leh dhulka anaa leh kan anaa leh dadka is dacweyna la hadlaya xaaraan hay qaadanin
حتى قاليك هذا كو حكمه أو كسي يقول لك أنا أسكله هدال له الإله كبق بري بركي إله أقصوية أدنو أقصونته إله أقصوية لكن أفتهنمه iyo in adeerka oo madax ku ah oo garabkaaga taagnan oo ah zuurnimo shahaad zurwa in adeerka kugu kaalmeynayo ama wasiir ama madax ah oo maxkamad inoo la hadlay ninkaas arrintii soo daa ama qareenka oo beenta kugu soo deynayo shahaad zurwa waa markaati beenaala wey marka kaas markaati beenaala lacagta ka keeno wuxuu ka faa'iidaa malatii ilaa kaga dhacay sokor uu qabaa cudur uu qabaa kan uu qabaa lacagta maxay ku tirtay marka aakhiradaada u cabso dadku way socdaan u jeedaay aakhiradaada u cabso marka aftahanima ku soo goostay oo wuxuu ku leeyahay ninkan waa aftahsana waa dhaxsana nabiga calayhi salaam wuxuu leeyahay war aniga bashar ah idinkana waa idinkoo doodaayo oo arrimo isku haasta ay iimaanaysaan walacalla bacdukum an yakuna alxan wuxuu leeyahay biakhiihi bixujatihi min bacd waxaa laga yaabaa ninka kale inuu ka aftahsan yahay ninka kale ama garab uu haastaa walaalkiisa madaxweyne ama wasiir ama baarlamaan ah markaasaa waxaa leeyahay waryaa ninkaas u xukun waxaas dada iska qorqoro wasaaradaha lacaga lagu qoraya lahayn hala siiyo hala bixiyo war waa la isweydiinaya waxaan la bixinayo ummada iskale qiyaamaha ummadaas dhan kuusoo safanaysa ku leedahay ninkan xaqaas u ahaa walidaalika kaas oo kugu dayna wuxuu leeyahay meeshaas adna goormaa kortaa saa u bixisidii adigana waxaa dulmigaas dhibaato ah wuxuu yidhi nabigu calayhi salatu wasalam waa ii imaanaysaan markaad ii timaadaanne wuxuu yidhi midka kale ka aftahansan ama garab uu wataa dheh soomaalida dhahan garab uu yili ninkan garabkiisa taagan tolkiisa taagan waa la kaalmeynaya walidaalika tolka oo dhibka isku kaalmeynaya shahaado zuur waa dhibkeeda leedahay war ninka walaalka ah hadduu qaldan yahay gacantiisa qabo walaalo waa qaldantaa dheh laakiin inaad aad daraadiis u dagaashid oo aad dad u dishid waa dhibaato weyn dhibaato weyn wey qiyaamaha hadhow lagaama hela hebel ay amray dadka saadaatana kubraana markay dadka qiyaamaha dhahan ilaahay kuwaan wuxuu leeyahay anaga waxaan idhahna male waana adeecdeen waxa kale ni amr anama ku qasbay shicaara kuu keenay wadannimo soomaalinimo hala galo hala dagaalo war dad muslim dhimanayo hadda waxaa la yaabaa cajiibka aan la yaaba waxaa kamid ah dad muslimiin oo soomaali ah isdilayo markaasa dadka waxay ku sheekeynayaan waxay leeyihiin hala laayo ha lagu farxo goormee dhiig muslim lagu farx la keenay goormee la keenay waa arrimahaas culamadu waa inay ka hadlaan arrimahaas oo kale xaqdaro wey been lagu sheegay nin muslim ninka kale inuu ku farx maaha ida altaqa almuslimaanu bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar adigana websaytyada iyo facebookada lagu qoraya waa la soo qabanaya hadda la dilaya waa la xiraya war ninkan alaysa muslima ninkan muslim ah ma gaala aan iskugu dacweyn hadda qolana kenya wadataa qolana etoobiya wadataa leey gorme anaga aan diinteena dhiigeena oo saas oo hadar u naqday waa anaga aan maanta dhan war ninka walaalkiisa ka dhaqaaqo gaal wuxuu u tiraya mala ogow ama dowlad ha ahaado ama mucaarad ha ahaado xataa dowlad hadday walaalkeeda gaal u kaashato dimbiile way xaq waa in saas loo sheegaa laakiin adig gaalkaaga waa xalaal gaalka kan xalaal ma jirto waa kulli in ninka walaalkaa kuu dhow asaga la hadlaysaa waana ka tanaasuli xataa wax kasta ka tanaasuleysaa laakiin soomaalida istanaasul ma taqaan ma raba inay tanaasulaan waxay rabaan ana adkaaday maxaa yeelay kuwa quuqaaqayaal ah oo cayaal yaryar ah oo aan diin iyo xeer iyo xishood aan lahayn ama xoolo taagan hebel ha laga adkaado hala raayo gaal maa la dagaalanaysa qof muslim la dagaalanaysa waxa aad nabad ku waysan xoog kuma heli karta soomaalina waa isna qaana soomaali walaalo iyo walaale wax ay ku leedahay laakiin een ku daba soconaysa maanta magac dowlad ama magac mucaarad ama wax ku dishi nin muslimna ku dishi ama askari ku dishi askari dhinacaan ama dhinacaan ma hadhow markaa yeela madaxda ay amartay wadanima u dili ma laga yeela ma dhiigiisa laga rabaa ninka ku soo diray waa qaada mas'uulka adina waa qaadaysa اختلط الحابل وحي اسku taagay marka shicaaraad been iyo waxba laafitaad la wata laafitaad waati jahiliyad way wadhiga muslimka la badbaadiyo nin Soomaali nin dilaya lagu farxin taas oo macnaheed ولذلك wuxuu leeyahay waa iimaanaysan wuxuu yiri wa aqdi lahu ala nahwi ma asma markaas wuxuu ku yiri bacda faman qadaytu lahu min haqqihi akhi shay'an warninka walaalkiis wixiisa aan u xukmiyay macnaha waa ka aftahsana saasoo ka aha wuxuu leeyahay nabi alayhi salaam falaa yaqdi isku qaadanin war dadka maxkamadaha isku dacweynay oo subur loogada isku sameysanayo waxaan leenahay xataa hadduu qaaliga ku xukma og tahay nabigu wuxuu leeyahay qaadan xaqdido maxaa dhacay wuxuu yiri fa inama aqta'a lahu qit'atan min an-nar qabl naara aan goynayo qadka telefoonka halo عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ساتي بارك الله فيك. لو سؤال قبي ان تنكوات هويدي سكري قبطا ان سون كفصونتو من هاد وسو سونتي 26 maalmood xogaa uu ku adkaaday tacbaan ku naqan 4 bariya dhiman marka madada qado u siinaya mise
su-aasha labaad maxay ahaaday cudurkan hadda jiro allahuma lijina laabiska gacmaha lagu tirtirto ama alkolada waxaa la dhahaa alcola ku jirto xaaraan ma la isticmaali karo yani maxaa diinta ay ka qabtaa geedaas gacmaha lagu tirtirinayo طيب أما سؤال هوري فيري هو إذا صونك القلادة اللي جودها قسمة إنه سكو حيحكو بال قال لقول ليه معنا بيش إنه حكتز معه وحواي ونصني سا ما أنت هالبريا كسومي سا ويك دم ما أنت كلا قلينا سا ما هذا ما دام ويل صونك كلا دوين بهذا تا أفر بريا ودم عليه أفر تبري قميص دي أصلا حتى أوكي ومعناها يا لودي من هويو إني هذا مركز دم بقى جارتو إني جودني عذر اللي هذا هاي هسك سكتو markay ilaahay awooday gudaysa qofka lagama soomayo qofka haduu nool yahay lagama soomayo laakiin waxa sida muuqato hooyo waxa dhibka u keenay inaad tiriyeen soonka dhan soo qalay hal mar wixii isku xirtay ma in isku xirtay ma soonka qalada waa la kala jarjari karaa saarta u soomi kartaa laba biri hal biri bilka bacdi hal maalin asbuuci hal maalin waxa xirta ka dhigi karta naam ama masalada kale alkolada masalada nijaasadeeda khilaafa ka taagan ma wax la isku waafaqsan ma qofka hadii uu cudur iskaga qaada waa iskaga dhaqi kara gacmaha naam qamrada iyo alkoolada iyo xataa inay najaas yihiin ayntooda khilaafa ka taagan fuqahada isku muwaafaqsana marka hala isticmaalo wixii uu cudur loogu hortagayo dib ma leh waa la isticmaali karaa insha Allah qadka dhinaca kale halo assalaamu calaykum wa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh suudi lambarkiis gaarkaan rabay marka barnaamijka dhamaada lagu siinaa soo wac insha Allah kan soo wac lambarkan soo wac insha Allah dhinaca kale halo الو qofkaas waa ka go'an filay asagana lamarka tv-ga iska gaabi akhi tv-ga hadda iska gaabin kuma maqlaayo qadka dhinaca kale qofka hadlaayo tv-ga iska gaabi halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaan ku weydiinaa islaantayda mar kasto waxbay malaysaa waxay tiraa malo halkaas wax ka jiraan waxaasaa samaystay waxaasaa ka samaystay mana sameeyo diinta maxay ka qabtaa malada qofka waa dambaabaysaa ina bacd dhanna ismu wey waa dambaabaysaa maantana maladan fiicno iyaaku wadan nabigu waa ka digay qofka inuu maanta dhan malo ku jiro waa laga digay maxaa yeelay malada shaydaan ayaa la socdo marka wuxuu rabaa qofkaas inuu naar geeyo rabaa marka qofku waxaa la rabaa in wax cad lagu qaato wax cad ayaa la isku qabtaa laakiin mala la iskuma qaban karo xuguna laguma dhisi karo marka waxaan leenahay gabadhaas hadday odaygeesu sheegaya ay tahay na maqlayso ilaahay ka cabsato nacam dhinaca kale qofkaas waa ka go'an filaya halo qofkaas waa go'an filaya asagana dhinaca kale halo tv ka fogow tv gu dhageysana qofkaas isagana dhinaca kale halo waa ku maqlahaa codkaa kor u qaad codka kor u qaad weli waxaan filaya qadkaaga xun ku celi mar labaad ku soo celi halo sheekh waxaan joogaa Kenya magacaygu waa Faadumo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wiilii gabar ay joogo wiilka marka هذا وط wiilii gabar ay joogo sheekh hal neef muu qali karaa haddaa waxaysanhaa hal neef u qali kartaa haddaa waxaysanin hadduu qofku waxaysanin wiilka hal waa ka qali karaa nacam waqalalka ilo jeedaa hal neef muu qali karaa haddii aad waxaysanin halal waa u qali kartaa nacam dhinaca kale halo waxaan filaya qofkaas isagana qadka ayaa ka go'ay idan waxaan wadna marka masalada aan ka hadlayno waxay ahayd qofka waxaa laga yaabaa xaaraanta inay sibaq ku gasho maxaa yeelay maalka xaaraanta wax la dhaco waxaa soo dhacday laftigooda ama dad ka dhac ama dowlad ka dhac xaaraan wey ma la ogola maxaa yeelay dariiqadii kugu soo galayna qaldan saan sheegna wey waxyaabaha kale ugu daran qofku maalka xaaraanta kasbada oo u maleeyo waxaa arkaysaa nin milyoneer ah lacaguu leeyahay ummaduu kasoo dhacay
xaqdaro ku soo qaatay sifa sharciya kuma soo gelin garab iyo laaluush iyo waxaasuu ku keenay lacagta qadka telefoonka halo halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سلمى. ها تلفونك هذا التي في كده. شيخ سؤالك ويدينا. هيه شيخ هوي Soomaaliyeed ahay. waa gartay. waxaa rabay inaa oo irbad oo family balaha inay gasto. xanuunna ma qabi laakiin waxaa rabay inaa jaamacadii tanaa la yaadhamaysto. ninkaaga isku waafaqsantiin arda ninkaaga isku waafaqsantiin ninkaaga raalli uu ka yahay ma haddii raalli ka yahay balaankaas waa nii bannaan yahay wax xanuun ma qabi waa caafimaad qaba wixii balaan waa bannaan yahay fiiri wixii intii caloosha intay gelin wax balaan waa ka samaysan kartiin asxaabta casliya samay jireen ayagoo balaankaas ula jeedo macnaha si ilmuhu u dhalin waxay ka hortagi jireen casliga waxaa la yidhaahaa ninka xaaskiisna uu tago laakiin uu shahwadiisa banaanka ku shubo casli ahayd marka asxaabtan way samayn jireen markii baleen uu jiro marka wixii balaan ah dhib ma laha waxaa daran ilmo dhan ma rabna inaad dhahdiin oo aad taranka dhan aad joojisiin laakiin hadday baleen tahay dhib male insha allah waxaa shardi ah balaanka inaad adiga odaygaada isku waafaqsantihiin gabadha inay ninkeeda qayaanto ee hoos baleen ka samaysata maaha ayadin isagana inuu kaligiis waxa samaysta maaha nacam qaadka dhinaca kale halo halo السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ السؤال بعد بين الكويت. الشيخ وحن كويتين يا كون عمر كان الظاهر كان القرآن كما أخذ كرتا. نعم وآخر كرتها. أوكي الشيخ السؤال كان بين الكويت الشيخ وحانها أمول رسولنا ولا يقول لي هاي مركز الشيخ ما بحين كرا. ما واسوق الله ينسى إن شاء الله مش مركز كبعديد أسوق الله ينسى. اوكي waan soo qallaynaya laakiin ma bixin karo laakiin ilmaha yar baa naaska siiyay marka dhamaysid insha Allah oo ilaahay goortu ku gaarsiyo soo qallaynaysa okay kisaaka la naam dhinaca kale halo 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 ha si Ismaan arwa saaku la hadlay TV kiisa gaabi ha barkaaga qaasta aharwa waxaa lagu siinaa marka barnaamijka dhamaa soo lagu siinaa insha Allah aye insha Allah insha Allah dhinaca kale halo ayga haystaan halo طيب waxaad moodaa marka waxyaabaha ay leedahay marka xaaraanta la qaadanayo dadka nin lacag leh oo lacagtiisa la yiri ka waran sadaqa ma gasho dadku waa iska sadaqaystaan ninka masaakiinka waa siinaysaa asaga ilaahay ku anfaca masaakiinkaas laakiin ajir aad laguma qorin أدنى حق قبتها وعلى ذلك كذا بحياة ذا أفرسية محاي مالك حرانة كنت عدم قبول الصدقة عليها ولذلك وان شاكن حديث مصعب بن سعد دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعود وصو بوقنايو ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو ها وكم أغلا فضل أخي يقصلي ومواد صومالي ذو قصو عايدلك هويو فضل أخي إلهكم بركة هذا ما استاذ يقصلي دروس هذا ولا سعنا وكذا ما علينا دينا شعب الصوماليات يكون دقن ذاك الصومالية جزاك الله خير إلهي أقبل أخي إلهي إذا كنا نحفظه يقصلي واحد بينا حكاوي ديو أن معارض لماذا واحد ينصام كخطوة ما دام على سعوديين ودن كي دولة كدرتي قرن لماذا يصون قتي واحد جرو محل رئيس سياسيين ومعارض كأنا أيوة دولة مر بالواحد حكوا هيستو oo shacabkeen yidibinaayo arrintaas diinsan maxay ka qabtaa shacabka Soomaaliyeed ragga dadkaas mar dagaalami karaan mushkiladda hataa waxay tahay mucaarad iyo muxaafad waxa weeye shacbiga ay adeegsadaan dadku waxay u arkaan masalada marka hore aan ka hadlo mucaaradka arrinta mucaaradka asalka waa iska ikhtilaaf ra'yi weey diinta islaamka waxay qabtaa ikhtilaaf ra'yi la yufsid lil wadiya dhulka ummadda wadanka dadka dhan oo ka dhaxeeya أفكارته ولا يسكو خلافي كرا وحتى أفكار الدين تي مسائل كفقه قال يسكو خلافي كرا لكن مسألة المعارض ما دام قانون دولي أوجروا أي معارضة بحي أبتا دون كانوا يكجر تامل كستوحي هذا قول معارضة مركب معارض كان أسأل كيس وحال ربا إنه واحد لسه واحد ندمي ما معايا لي دولة وبشر نفتق هذا قال هذا جليس هدي لي يراهو إن أنا جوحان أرجع دولة ديكتاتور كأ ودمضى عربت سو حكومي جرو حتى حكومانو
askarta ahaa waxyaabaha wadanka asbaabaha u dumi waxaa kamid ah cid mucaarad ku eed ma jirin waxay rabaan ay sameynayeen wamaa uriikum ilaa ma ara fircoona lagu qabsaday wuxuu yidhi dadka wuxuu yidhi aniga waxaan ii sheegalay qaata wamaa ahdiikum ilaa sabiili rashaad jidkayga mara yidhi walidaalika mucaaradnimada faa'iida dhinac waa ka leedahay waxay u leedahay ninka hadduu u maleeyo asaga inuu wuxuu rabo iska samaysto oo dadkan heesa u daaro uu yidhaaho heesahan le qaada sidii lagu yaqiinay kacaankii iyo dowladaha dictatorka ah oo ummadda jiif ku rido tan hadda aan dhaxalnay keenta marka taas waa asal marka dadka iyo mucaaradka iyo u arkin laakiin mucaaradka hala kala saaro mucaaradnimada waa wanaagsan tahay dowladdeena u ilaalinaysaa dowladda haddii faraha laga qaado waxaa laga yaabaa inay istiraah waxaa harta ka samayso ummaddan berri ummaddii meel qar ay ka tuurto ummaddan waa ummad muslima gaaladan waxay u samaysteen mucaarad inay ku ilaalsadaan xuquuqdaas oo beri la yidhaaho xisbiga mucaaradka hadlaya wuxuu leeyahay waxaa dowladda ay ku tiraa qalad wey waa samaynaysaa shalay waxaa maqlaya faransiiska ayaa qolada mucaaradka ah waxay dhahayeen dowladda maxay xuduud talaanig u xir weyday maxaa dhacay cudura talaanig ka dhacay xuduud waa inay xirtaa markay maqashay xirtay mucaaradka u sheegay walidaalika inay saas isku kaashadaan oo waxay mucaaradka sheegaan oo qaladna dowladda inay ka kaafto ay tiraaho war meeshaas ummaddu way dhibaysaaye haddaan anaga arkin dadkeena kursiga rabaa arkee aan iska daboolnay dhahaan laakiin hadday ka dhaga furteysmaan waa dowladda naftigeeda waxaan leenahay ilaahay ka cabso ama mucaaradka oo asagana kursigaasoo ku koran rabo oo ummadda dhan been u sheegayo ama inuu dumi rabo dowladnimada aan ahayn aan dowladnimo aan ka ahayn oo rabo asaga aniga haddaan kan aniga aan ku cunin waa ku ciidey daata waxaan leenahay ilaahay ka cabso makaa yeelaynin taas marka shacbiga waa la wareeriyey dowladna waa wareerisay mucaaradna waa wareerisay walidaalika shacbiga waxaa la rabaa inay culummadu usoo baxaan ee u sheegaan waxa jira oo dowladda naftigeeda ee ogaatay in yac la dhihi karo wax yac lagu dhihi karo maxaa yeele haddii kale waxay rabta iska sameynay waxay rabta iska sameyn kartaa sida mucaaradka walidaalika hadda waxaa arkaysaa propagandada dowladda badan mucaaradkay ku jeedisay inta aragna mucaaradka halaga ilaali wada xataa inay tiraah wadanin ma ihid waa dhibkeeda leedahay waxaa la rabaa marka in shacbiga ay foojignaadaan ay dhahaan dowladdan ay saas dhahaan mucaaradkan dhahaan maya ay saas u kala dhiciyaan ama hadii kale shacabka wuxuu noqonaya aala la adeegsado kanna shalay waa ku adeegsaday kanna waa ku adeegsaday marka arrinta in saas loo fahmaa wanaagsan mucaaradka iyo igana iyo muxaafadkan iyo dowladda waxaa la rabaa inay xiriir ka dhexeeyo ay wada hadlaan wadankan cid ka xigta ma laha cidankan gabadha kan qamrada cabo wadanku wuxuu kala leeyahay xataa wadaadada waxaan dhahnaa anaga diiwadayga wadanka asxijinina wadanka gabadha qaawan sidoo kale gabadha wadankaas mucaarad iyo muxaafada asla leh marka inay dantooda ka hadlaan ay yidhahan war maxaa naga qaldan aan wada fariisano laakiin qof kale hadduu inkiro balaayaa soo socoto marka balaayadaas waa in shacbiga ay ka foojignaadaan dowladdana loo naseexeeyo la yidhaaho war arrintan wadanka saan qalalaasuu ku imaanayaa halees ilaaliyo mucaaradka in la yidhaho war waxaa ku socotaan wadanka ayaa dumayey wadanka gaalo badan oo cadow ku leeyahay in lees ilaaliyo waa hadday saas ahayn ee daacad iyo qalbi saafi u jirin oo nin kastaba ninka kale uu rabo inuu brograam ku sameeyo annaga ma nihi dadka brograamka lagu sameeyo oo brograamka la gashanayay ama kuwa hadda sheegay oo ah laaluushkil in la siiyo beri in ayagoo indhahooda qabsan qabiil ahaan ninka ku ayidayo ama wasiira adeerkiisa ah aan ku ayidayo ama mucaaradka in adeer uu yahay mucaaradka la jiraa in adeerkiisa mucaarad ila ah taas waa mushkil wadanka dhan halis ku ah walidaalika masaladaas waxay u baahan tahay akhiyi barnaamij badan iyo tawjiihi badan laga sameeyo in la yiraahdo wadankan maxaa dan u ah cid ka xigta male wadankan dowladda maamulka loo dhiibay beri waa bixaysaa too kala imaanayso inaan aan wada hadalno laakiin wax oo muaqat ah inaan dad kumeel aan isku heshiina afar sano la qabto walidaalika dastuurka laftigiisa naga qaldan haddii xaqiiqa laga hadlayo marka in oorku la isku kacsado maaha ilaahay laga cabsado wadankaas ha loo turo mucaarad iyo muxaafido wadanka u turo saasaa leenahay anaga qadka telefoonka halow halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu shiikow waa ku salaamaya asalaamu calaykum waxaan ku weydiin lahaa laba su-aalood ha mid waxa weeye waalidkay oo dhintay aan maaragtay waxyaabo aad waxaan sameeyaa jamcooyinka oo kale markaa masaajidka aan lacag wax dhiibaa maye marka waxaan u baahanahay wax ayaga macnaha aad wax ugu tari kara maaragtay oo nacam sadaqa jaari akhi masaajidka wax ku dirta waa fiican tahay masaajid wuxuu kamid yahay waxyaabaha sadaqa jaaridu kamid yahay masaajidka wixiis waa socdaan marka wax oo ceelna u qodid masaajidna wax ugu dirtid ilmo agooman ah ina u kafaalo qaadid iyagu u niyeysatid waxaas dhan waxyaabaha oo soconay kamid tahay sadaqa jaariya la yidhaha su-aasha labaad shiikow
soomaaliya jawaabta waa ogtahay waxaa ka jira dhibaato iyo burbur iyo waxbaa ka jira dowladda soomaaliya hadda say maaragtay ay dad say wax ku wadana dadka qaar macnaha waa way jecel yihiin oo maaragtay dhib kuma qabaan dadna maaragtay waxa weeye dhibay ku qabaan waxaa jira ciidamo soomaaliya maaragtay oo la yidhaahdo haramacad oo meelo gobollo kale oo aad u fogfog oo adiga dade iyo la geeyey magaalada muqdisho waxaa jirta in dowladda afgooye iyo maaragtay iyo xamar aysan tegi karin balcad iyo xamar inaan la isku mari karin marka maxaa meeshaas kasoo bixi kara haddii meelahaas fudud loo rabo in dad laga soo qaso dhulkii dhawaa oo dowladda ay joogtayna maaragtay aysan waxba ka qaban karin arrintaas ka waran akhi arrin siyaasa ay weydiinaysaa dad oo arrimaha siyaasadda oo ah arrintaas ka waran aniga hadda nin siyaasi ma ihi laakiin aniga arrimaha masalada diinta wax ka qosaysaan ka sheegaya oo ah qof muslim ah ama askariga muqdisho laga kaxeeyo ama meel laga geey in ummad kale oo Soomaali ah oo loo diro oo loo adeegsado ma banaano ninka uu adeegsadana askari xaq u leeyahay inuu diido oo yiraahdo ma aaday dad muslim la dagaalay aniga dad gaal ay ugu tala gashay yani xuduud inaan ilaaliyo aan cadow ka celiyo laakiin ina iqaadid gobol halkaas ay geysay gobolka kale ay ugu garaacday diinta ma ogolo taas waa in culimadan ay cadeeyaan ummadana dowladan loo sheego leeyahay war waxa sameynaysan waa qalad ummadda propagandada oo magaalada loo sheegayo ama dad loo sheegayo Soomaaliya waa istaqaana dad waxa laga yaabaa isku jufa in isdagaalayaan dad hoose in isdagaalayaan laga yaabaa marka war dagaal ahli waa laga soo baxee yaa la isku adeegsanin magac dowladda yaa la isku laaynin oo dhig yaa lagu galin dowladda inuu nasteex waa fiicanta laakiin manhajka ay dowladda ku soconaysa iyo amnigiisa ay u ilaalinayso waa iyada hole u taal way habkay u ilaalinaysa iyada u taala nacam dhinaca kale halow assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekhu kugu soo noqday barlabaad waxyaalaha jiro oo alcohol ku jirta laakiin kiniiniga qufaca loo cuno bankeegyada keega waxyaalahaasete maxay ka qabtaa diinta waxyaalahaasete nacam wixii bedel loo heli karo oo xalaal qaalis la heli karo bedel waa la bedelaa kaniiniyaasha oo xaaraanta ku jirto iyo qansiirka iyo wax la sheegayo haddii bedel loo helaa waa loo helaa haddii la waayo laakiin masalada culamada sidii fatwada oo ahayd khafiifka ahayd oo ahayd waxa markay istixaala ku dhacdo ileen qansiirkii oo kaligiis lama cunaye warshadoo maray waxbaa la sameeyey alcoholadan sheegayay sidii waa isbedeshay nisba ilaa saddeed tahay waxaa laga yaabaa in waxay ka mid tahay wain kaana sidii nijaasaad waxaa jiro macfi can la dhahay ay gelaysaa oo la cafiyey ayuu nijaasa waxaa leeyahay haddana waa la cafiyey insha allah nacam dhinaca kale halo halo ha qofkaas waa ka go-an filaya dhinaca kale